weydiiyaa reer wanaagsan muxuu ku wanaagsan yahay meeqa tiir buu ku taagan yahay reerka wanaagsan kaamiradan hadda wax duubaysa aniga arkay idinkuma aragtaan 3 lugood ayay ku taagan tahay masjidka iga gadaaleeya intaasoo tiir buu leeyahay islaamka arkaysaan 5 tiir buu ku taagan yahay idan haddaad aragto wax taagan haddaad aragto wax adag haddaad aragto wax ishaysta haddaad aragto wax aan dhacaynin waxa weeyaan wax adkaynaya ayaa jira dhulkan aad arkaysaan waxa lagu adkeeyay oo dhaqdhaqaaqa lagaga ilaaliyaa buuraha sida ilaahay quraankiisa uu noogu sheegay subhanahu wa ta'ala haddaba reer wanaagsan muxuu ku wanaagsanaada tiirarka uu ku taagan yahay maxaa kamida koow bal hadda tirsada tiirka koobaad waa taqwa allah ogaada meel la ku qorta reerka wanaagsani wuxuu ku taagan yahay waa tiirka koobaad oo tiir laga hormaray uusan jirin waa al-iimaanu billahi wal amalu saalih waa rumayn ilaahay si dhaba loo rumeeyay iyo amal toosan oo lala imaado allah oo la raali geliyo jalla jalaaluhu shaytaanka oo lala collaytamo allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka caroon hayay oo dhan oo la iska ilaaliyo idan reerku waxa uu ku taagan yahay waa midda waayo ilaahay baa naxariistiisa samada kaga soo dejinaya waa reer tukanaya waa reer soomaya waa reer wax sadaqaysanaya waa reer ilaahay ku xidhan waa reer alle keligii caabuda oo ilaahay subhanahu wa ta'ala cid kale aan la caabudin kaasi waa qodobka labaad waxa weeye uu reer dhisan ku taagan yahay waa al-ittifaaq waa waxay isku og yihiin oo isku waafaqeen oo ay ka wada hadleen ama ay qorteen ama ay duubteen oo ay saxiixdeen oo qodobo uu yaala waxaad ogtihiin hadda maanta adduunka dawladaha marka laga hadlayo shuruucba u taala adduunka marka laga hadlayo hatta muassasa yar oo tijaari ah marka la samaynayo dukaan markay laba qof isku darsanayaan waxbay kala qortaan haddaba mashruuc adduudku ay galaan akbar mashruuc fi العالم waa la isku waafaqsan yahay waa mashruuc zawaaj mashruuca weyna inta la eg minuusan qoraal uusan lahayn oo uusan ittifaaq lahayn oo wax la isku og yahay lahayn oo awlawiyaad iyo wax la kala hormariyo ay lahayn oo haday dib yimaado sidii loo xalin lahaa khilaafka maxaa keena xageebu ka imaadaa maxaad ka cadhootaa maxaa ku dejiya seen caruurteena u korsana dhaqaaluhu xagee ka imaanaya waa inuu jiro xuduud ay labadooda midna dhaafi karin oo dastuur u yaala waa inuu yahay qaanuun oo xeer hoosaada waa inuu leeyahay idan waa qodobka labaad reerku hadii kala fawdu noqonaya ani waxana ila tahay adna waxana kula tahay idan reerku fawdu noqonaya kaana waa qodobka labaad qodobka saddexaad waa al-ihtiram wa in labada qof mid walba midka kale uu qadariyo indhihiisu ay ku weynaadaan gabadhu indhaheedu waa inuu ninku ku weynaado ninkuna indhihiisu waa inay gabadha ay ku weynaadaan sida daraadeed ihtiram iyo qadarin ihtiram xagga aqliga ah naag baa tahay maxaa sheegi haday arintu ka taaganta bilcan baa tahay maxaa sheegi haday arintuba ka taaganta haweenku ma waxba laga qaataa haday arintu ka taaganta ama gabadhu ay baa arto ninkan inay ka sarreyso oo nin doqon oo dhaandhaan oo calan oo ahbalo ma taqaan waxba garanay inuu yahay oo qeyrkii ka haray oo mar walbaba maskaxdii hoos loo dhigayo yani waxa weeye xagga aqliga in la isku ixtiraamo oo xagga shaqada in la isku ixtiraamo hatta hadaynu cuntadu aad u yar fiicnayn in la isdhiiri geliyo oo la isku ninku shaqadiisu haduu ka yar in la isku dhiiri geliyo marka in kor la isu qaado ixtiraam iyo qadarin labada qof waa tiirka saddexaad xusuusta tiirka koobaad waa midka Allah kugu xidhay jalla jalaalu tiirka labaadna waa tiirka labadiina idin kala celinaya tiirka saddexaadna waa tiirka qiyamka tilmaamaya ee labadiina inaad jirtaan mid walba midka kale ogolaysiinay qodobka afraad oo ku khatimayo bidillaahi subhanahu wa ta'ala waa al-huquuq wa in huquuqda la ilaaliyo oo ninka xaqiisa uu ka soo baxo gabadhana xaqeeda ay ka soo baxdo mid walbana uu arko inuu qofka kale guriga ku taagan yahay ee uusan asagu u arkin inuu aniga igu taagan yahay ee waa inaad aaminto inuu qofka kale ku taagan yahay tawaadu marka waa tawaadu iyo hoos isu dhig idan hadaad weydiiseen ama aad in badan igu soo celceliseen reerka wanaagsan muxuu ku wanaagsan yahay waa qodobo badan laakiin si sandwich ah si aad ugu qaadataan waqti dheer
aana idinkaga qaadin adoo jikada ku jira adoo baabuurkaaga wata adoo suuqa maraya adiga oo kabaha sii gashanaya si aad kelimadan dhagaha oga sii buuxsato waxaan leeyahay walil xadiisi baqiya sheekooyin intaa ka macaan